Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka qayb galay munaasabad Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda ay ugu dabaaldegaysay Maalinta Beeraha Adduunka. Hay'adda Cuntada Adduunka ee WFP ayaa beeraleyda Soomaaliyeed kula heshiisay inay ka iibsato 4,000 oo mitir tan oo dalagga galleyda oo gargaar ahaan loo siili doono dadka danyarta ah ee Soomaaliyeed iyadoona heshiiska uu goobjoog ka ahaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyo Wasiirka Beeraha. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku dadaalayso wax ka qabashada dhismaha kaabayaasha beeraleyda iyadoona lagu dadaalayo sugnaanta cuntada dalagyada beeraha dalka ka soo go'a. Munaasabadan caalamka adduunka maanta waxaa halays looga dhigay in xoogga la saaro badbaadada cuntada. Annaguna waxaan halays uga dhignay badar bannaanka laga keenay kuma baahi tiree beertaada falo. wasaaraddu iyadoo ka duulaysa tilmaamaha ee tusaalayaashaada mudane ra'iisul wasaare waxaan awoodda saarnay in dalkan loo helo badbaado cunto in lagu gaaro. haddaan dadku badbaado cunto gaarinna amnigii kale laga helayo oo isku xiran yihiin labadaas sida ilaahay buu qur-aanka ku sheegay alladii aamanahum min khawfin alladii adcamahum min juucin wa aamanahum min khawfin. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa madasha lagu maamuusayay Maalinta Beeraha Adduunka iyo midda beeraleyda Soomaaliyeed waxa uu hay'adaha gargaarka bixiya ugu baaqay inay cuntooyinka ka iibsadaan beeraleyda Soomaaliyeed waxaana uu beeraleyda Soomaaliyeed ku bogaadiyay in aysan niyad jabin oo ay ku dadaalaan sugnaanta cuntada iyo dalagyada ay soo saarayaan. in annagu aan halkan joogno oo maanta ka hadlayno in aan dhaqaalaha ugu badan ku soo iibsano raashinkii aan cuni lahayn iyadoo aan leenahay fursaddii annagu aan dunida quudin lahayn waxay tusaale ka tahay Soomaalida shaqada laga rabo inay qabato iyo shaqadan hor taalla inta ay leegtahay. waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka sheego in hay'adihii nala shaqaynayay ay halkan joogaan una joogaan inay aqbalaan inay u shaqeeyaan si ka duwan sidii hore. cuntadii ay dibadda ka keeni jireen ay aqbalaan inay ka gataan beeraleyda Soomaaliyeed. inay 4,000 oo mitrig tan ka iibsanayaan waxaan leeyahay waa shaqo yar oo bilow ah waa dhibic bad lagu dhibciyey. waxaan leenahay waa in wax walba oo aad Soomaaliya gelinaysaan aad ka iibsataan beeraleyda Soomaaliyeed. dalalka deriska oo aan haysan raashin ku filanna waxaan leenahay waxaa idin soo saaraysa beeraleyda Soomaaliyeed ee ka iibsada. Gabagabadii munaasabadda waxaa goobta lagu soo bandhigay dalagyada kala duwan ee ka soo go'a beeraha Soomaaliyeed islamarkaana ay tabcadaan beeraleyda waxaana halkaasi ku indhi-indheeyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin sare oo ka socotay hay'adda Faaido iyo hay'adda WFP iyo Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Soomaaliya kuwaasi oo aad ula dhacay sida beeraleyda Soomaaliyeed ay ugu hoolan yihiin wax soo saarka beeraha. Cabdicasiis Ibraahim Axmed TV Universal magaalada Muqdisho.